بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، walaalyaal towfiiqda Allah noo wafajiyo, taqwada Allena subxaanahu wa tacaala aanu ku dadaalno qof kastoo muslim ah mar kastaba inuu qalbigiisa fiiriyo iyo xaalka uu ku sugan yahay. usbuucan dhexdiisa hadda aan ku sugannahay anoo masaajidka fadhiya baa nin dhalinyaro ah ka mid ah dhalinyarada masjidka ayaa ii yimid. kaasuu wuxuu igu yidhi, sheekhow, saqafka koray waxaa laga yaabaa inay bisad ku dhimatay, see ku ogaataan ku idhi. wuxuu yidhi dulayl yar baa jiray, dulaylkii bay ka galeen, laga yaabaa in la owday iyadoo la ogeyn inay wax ku jiraan. see ku ogaataan ku idhi meesha wax ku dhinteen? wuxuu yidhi dhinaca ay ku dhinteen waxa weeye bisadaha ay ku baktiyeen ayaa waxaan arkay xoogaa dakhsi yar 2 iyo 3 agaarahaas taagan. waxaan ku yidhi orod soo eg, ur yarna waa jiraa buu yidhi, xoogaa ur yarna waa jiraa. calaa kulli xaal waa iga tegay, meeshii waa la nadiifiyey, alxamdulilah. markaan istaagay ba waxaan isweydiiyey, dakhsigan noo sheegaya meesha wasakhda ama bakhtiga uu yaalo, ilaahay muxuu u khalqay? meel kasta aan joogno dakhsiga waa la helayaa. meelaha wasakhda ah ama bakhtiga uu yaalo, dakhsiga aad buu ugu badan yahay. talow muxuu ilaahay subxana wa tacaala u khalqay xayawaankan yar oo annagu aan dhibsanayno? xikmad baa ku jirto ilaahay wuxuu u khalqay. waan isweydiiyey, gogolkaan galay, waxaan soo xasuustay aayaddii qur'aanka, يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إلهي سبحانه وتعالى دخسي قرآنك وكشي. نبينا صلوات ربي وسلام عليه دخسي قرآنك أحاديث وكشي. شيء كستو قرآنك لو شيء حيوان هذا، cunto ha ahaato, geed ha ahaado, lahu ahamiya, muhiimad buu leeyahay. u fiirso malabka, zaytuunka, nebigu wuxuu sheegay xabad sawdada, sanjabiisha, waxaa weeye quraanjada, caarcaarada, waxaasoo dhan qur-aanka waa lagu sheegay. waxaan is idhi, maxaa loo abuuray? ilaahay muxuu ugu sheegay qur'aanka? dakhsigana muxuu abuuray? waxaad arkaysaa wasakhdu marka meel waxa way taalo, dakhsiga ilbiriqsi ku imaanaya, wakaannahu inuu raadinaya. waxay ishaaro u tahay oo tilmaan u tahay in anagu nadaafadeena aan ku dadaalno. waayo annadaafatu min aliimaan, nadaafadu iimaankay ka mid tahay, oo qofka gurigiisa nadiifiyo, oo waxyaabaha ku waxa way hareersan nadiifiyo, oo meesha uu maray nadiifiyo, goobta uu joogo, community-ga, bulshada, meelaha waddanka, in la ilaaliyo nadaafadda. ishaare wuxuu u tahay dakhsiga inuu ku xasuusiyo. haddii aanan jooginna bakhtiga wuxuu ka qaadayaa wax kasta oo dhib u keenaya, kasta oo annagana dhibi lahaa ayuu meesha dhan ka masaxaya dakhsigu. ilaahay muxuu yidhi, yaa ayuha nnaasu dadow. qur'aanku wuxuu la hadlayaa caalamkao dhan buu la hadlayaa. baynamaa ambiyada kale loo soo diray qowmiyaadkooda, nebi muuse, nebi ciise, nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh, caalamkao dhan baa loo soo diray. ilaa qiyaami saaca
ayaa loo soo diray. macnuhu waxa weeye mar kastaba qur'aanka kitaabkan wuxuu la hadlayaa dadka ilaa qiyaami saaca xaalad kasta ay ku sugan yihiin. wabaynamaa anaga aan ku sugannahay caalamulcilm aqoonta inay aad waxa way u saramartay, qur'aanka wuxuu la hadlayaa dadka scientistiga ah, wuxuu la hadlayaa kuwa researcherska ah aqoonta leh. wuxuu leeyahay eega waxa aad haysaan qur'aanka ka barta. yaa ayuha annaas dadow duriba mathal, tusaale ayaa laydin siiyey ee fastamicuu lah, dhegaysta. ilaahay subxaana wa tacaala tusaale badan buuna siiyaa fi lqur'aan. u fiirsato tusaalaha. daraba allahu mathalan duriba mathalan fastamicuu lah. ina aladiina tadcuuna min duunihi lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu lah. kuwa aad alle subxaana wa tacaala sokadiisa baryaysaan oo aad caabudaysaan oo aad wax kasta weydiisanaysaan, lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu lah. lan ma abuuri karaan hadda walaa fi lmustaqbal, weligood abuuri kari maayaan daksi walow ijtamacuu lah. haddeeba u kulmaan, haddii xataa ay u wada kulmaan ay yidhahdaan maanta caalamka meel ayuu gaaray, daksi yar aanu abuurno, abuuri kari maayaan. kuwa aad u malaysaan adduunkao dhan inay gacanta ku hayaan, kuwa aad u haysataan in adduunka iyagu ay maamulaan, kuwa aad baryaysaan, kuwa aad isleedihiin wax ka hela oo gacmaha aad u hoosanaysaan, kuwa aad u malaysaan inay ayagu idin badbaadin karaan, lan yakhluquu dubaaban. hadday isu tagaan mukhtabaraadka caalamka oo dhan, laboratoriska caalamka o dhan hadday isu tagaan ay yidhahdaan waxaan abuuraynaa hal daksi, ma abuuri karaan walow ijtamacuu lah. taa waxaa ka daran wain yaslubhum adubaabu shay-an, daksiga hadduu wax ka qaado. bini aadanku waa daciif. daksiga hadduu wax kaa qaato cuntadaad cunaysid ama wax yar uu korkaada ka qaado, lan yastanqiduuhu minh, kama soo ceshan karaan. asnaamta ay caabudi jireen ha laga wado, bini aadanka hadda joogo, kuwa u haysta inay hormareen, haddii daksi uu korkaada fuulo ama cuntadaada, ilaahay suu u khalqay daksigaa markaa isleedahay ku dhufo ama wax ku dhufo, waaba kaa cararayba, ma gaari kartid. liannahu uu kaa sareeyaa dhinaca surcada degdega, indhihiisa kuwaada waa ka horayaan. ilaahay baa u khalqay, markaad aragto already wuu ku arkay. anagu sidaan baan wax u arkaynaa, dhinaca kaloo dhan buu wax ka arkayaa. gacanta aad soo qaadayso waxaas leedahay daksiga xaggaas u jeedaa, waaba kaa duulayba isla markii. ma qaban kartaan. dacufa aalibu waalmatluub, kan wax raadinayo oo ka raadinayo ilaahay sokadii oo u malaynayo tala saarashada in ilaahay khayrkii la tala saarto oo isdhahaya kaa ilaahay khayrkii baa ka raadinaysaa, waa dacufa, waa mid daciifa, waa mid liita. walmatluubkan wax laga dalbayana waa makhluuq asagana. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leey war caalamkan anaa abuuray, daksiga anaa abuuray, kan aad wax ka baryaysa anaa abuuray, fatawakkal calaya, aniga itala saaro. ibn cabbaas nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, yaa ghulaam ixfad illaah yaxfaduk, ilaahay xifdi, alle waa ku xifdin. alle xifdi tajidhu tujaahak, horta ayaa helaysaa. cibaadada ku dadaal, macaasida iska ilaali, ilaahay bari, tala saaro, alle umuurahada u dhiibo. ogow buu yidhi ibn cabbaaso, hadduu caalamka oo dhan uu kulmo inay nafci ku siiyaan ama wax ku siiyaan oo alle ku qadarin ku siin kari maayaan. hadday dhammaantoodana kulmaan inay dhib ku gaarsiiyaan ama xumaan ay ku gaarsiiyaan, kuma gaarsiin karaan ilaa ilaahay uu qadare mooyaane. quwatun fi liimaan fi ltawakkul. daksiga haddaan u soo noqono, ilaahay muxuu u abuuray makhluuqan yar, jursumaadka caalamka iyo meesha ku jiro ayuu qaadaa. laakiin ma intaa keliya
maya bal الجهاز الهضمي the digestive system adigoo hadda markaad cunto ilaahay candhuuf buu kuu hagaajiyay cuntada caaliyada cuntada ayay marka hore sii jilcinaysaa ilkaa lagu siiyey cuntada ayay marka hore jilcinaysaa ilkaha jilcinaya kadib marka cuntada cunto calooshaada waxay soo saartaa acid waxa la yiraahdo acidka ee soo saarayso ayay waxa sii burburinaysaa cuntadii aad cuntay kadib buu cuntadii iyo meelihii kale aadaysa asagu sidaa ma ah dhubaabka daqsiga madaxiisa kore ayuu wuxuu ku leeyahay san wax u eg yar wuxuu ka soo saarayaa jirkiisa acidkii adiga calooshaada ku jiray cuntada uu markaa ama waxa uu cunayo buu marka horeba dhalaalinayaa kadib ayuu nuugayaa isla markii markuu cuntada qaato dhiigiisa ayay cuntadii gelaysaa isla markiina awood buu helayaa oo ku buubo intaa ilaahay baa sidaa u khalqay nabi maxamed wuxuuna yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiiska bukhaari ku sugan nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh idaa dakhala الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثلاثا هدو دقسيقة وقالوا في شراب أحدكم متكين الشراب كيسا بيهيسا هدو كل حاجة أما الشاهيسا هذا حق اليوم هكون مقوصي إلى هوس كده إنها صار ما هذا حي نبي محمد وما دقسي وسخبضا oo meelaha kale istaagaya see shaah u dhaxgelina ninka mutacallimka ama xoogaa yara cilmiga qur'aan ka bartay xulay ruuxan waa wax aafaat xadiistan lama yaqaan meel ka yimaadeen naga daaya cilmiga wuxuu baaray nabigu wuxuu yiri sababtu waxay tahay baalkiisa mid waa cudur buu ku wataa baalka kalena daqsiga daw ku wataa haddaad geliso cudurkii waxaa bedelay daawadii cilmiga casriga hadda wuxuu leeyahay doctor jaamacadda Tokyo ku jiro oo Yuan Bravo la yiraahdo ku takhasusay daqsiga rag baa hadda ku takhasusay daqsiga waayo 100 nooc buu leeyahay hatta cuntada aan cunayna qaarkood daqsiga hagaajiya kokooda oo kale chocolaatada laga sameeyo oo maanta caalamka oo isticmaalayo nooc daqsiga kamid ah ayaa ubaxa ama geedka kokowaha isu qaadamo pollination wax loo yaqaan sameeya doctorku wuxuu leeyahay waxaad arki doontaa mar dhow isbitaalada daqsiga inaan meel dhan u khaas yeelno saan uga soo saarno daawada way jirkiisa daawo badan baa ku jirto daawadaas oo laga helayo ka hortaga ama wax lagu xoojiyo ka hortaga jirka bini'aadanka maadaama uu caalamkan wax kasta ka dhaco bisad baa meel ku dhimanayso duur baa wax ku dhimanaya wax kale caalamka oo dhan baa qurmi laha ilaahay wuxuu u sameeyey jeeshkan duulayo meel kastaba soo masaxay jurthumaadkaas ay qaadayaan marka see u noolaadaan ama daqsiga suu u noolaado ilaahay wuxuu siiyey manaaca caafimaad kale iyo daawo ayuu dhinac kale ugu daray ilaahayga inaan caabudno sooma oo sidaan anagu noo ilaaliyey oo caalamkeena ilaaliyey yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl ilaahay aan ka baqan walaalayaan ilaahay aan tala saarano xaqiiqdii ilaahay ayaana ilaalinaya xaaladda ku sugan tahay meesha u socoto saad rabto inaan noqoto wax kasto alle u dhiibo alle tala saaro tawakkal calayh ilaahay quudiyo daqsiga adiguna waa ku quudin karaa risqi waa ku siin karaa risqi xalaal raadi haddegin alle bari wadada alle subhanahu wa ta'ala qabso fi kulli salatin salat walba waxaan dhahnaa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ilaahu alladhi kaliya ayaan ku caabudeena adigu kalina waa ku kaalmo weydiisanayna falisti'aana ولله وحده لا شريك له.